وهرجيسة أنتينا كنول أنت مرون تميد أما صوب وقتي أيو تقارن هرجيسة قداش إذا كم وقتها وهرجيسة مدة كوسيمان صدق صنّا كبيرة دقالة يدسمياش إيش صوت ريا إما اللي بمالك تقدم بيساعي وتاي هالبيجا لقى قياس قاسطه حضن لولادك dadka ku nool magaalada Hargeysa daawade Hargeysadu ma taqaanun ba mise waxa jirta Hargeysa kale oo qarsoon waxa barnaamijkan iskiin baraya Hargeysada qarsoon sidoo kale waxa uu cod u yahay mahadlaha u baahan in loo hadlo qof kasta oo muddo kooban ka maqnaada waxa uu Hargeysa ku arkaya isbedel xawaare ku socda oo u badan kororka dhismayaasha kuwa dabaqa ah ama isasaarka ah iyo kuwa kaleba waxa dheer fiditaanka ay magaalo ahaan dhinacyada u fidayso taasoo macnaheedu tahay in dhaqaale ahaan ay kobcayso hase ahaatee waxaa jirta Hargeysa aan ahayn tan inoo muuqata oo aan ula baxay anigu Hargeysada qarsoon daawade haddii aad isweydiinaysay Hargeysada qarsoon eenu ka soo sheekeynay halkan ayaa laga galaa Hargeysada qarsoon waxaan jeclahay in ay soo raacdaan balac ahaan ma yara tirada dadka ku noolna waxa lagu qiyaasaa sida ay sheegeen dadka ku nooli ku dhawaad 5,000 oo qoys dadka ku nool dhammaantood waa dan yar u qaraab taga suuqa kana xoogsada shaqooyinka gacanta lagu qabto noocyadooda kala duwan Aasha Xuseen waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool Hargeysada qarsoon waxay daris la tahay waayo nololeed kuwa ugu adag waxaanay mas'uul ka tahay qoys ka kooban 17 qof oo caruur badan waxay iga warantay nolosheeda anigu qoyskayga ilaahay baa sida igu og ilaahay qaadir raxmaana ayaa sida igu ogay nolosha xaafadayda maanta oo adagta waligayba way soo mari jirtay anigayga kula hadlaya bisheedii waan jabay gacantaasaan ka jabay laba feedood baan ka jabay dankaas oo dhan wali ogay waan ka jabay dhakhtarkii waa lacag waa kan mar alla marka tagta $150 keen baa la yiraahdaa maxaa lagugu kaab yaa inaan bayga tahriibay inankayga tahriibe magafa haysta 8 bilood buu haysta magafe ma garatay waxa laga doonayaa lacagta uu raagayo 10,000 shilina ma dirin waagi bar 10,000 markii haddaan 8,500 diro oo dollar way dhawaan lahay laakiin imka 8 bilood buu ku jiraa waa la dilaa in madax xaafada ila soo hadla ee ka baxay amba jooga waxa yiraahdaa inanka lacag ma soo dirtay waa lagu daweynayaa waa la dilaa darkii uu daadiyo intada ma cuno alaanka ma qafaadaan inay qaraaco amba nimanka haystaan inay qaraacada waad hadlaysa anu naag beel badan baana caruurta 13 baan dhalo 3 daraya dishay waxaan idhaaba aakhira ii tagay laakiin 10kii baan nool 10kiina laba caruurta igu dhalo waxa haya waxa weeyaan meel laba ah iyo meel 5 ya marka guud ahaan waa 17 caruur inta guriga ku nool isku geyn waxa ku nooleen 17 ayaa ku nool ka baxay mooyaan 16 baa imka la joogtay kaasina warwarkiisa baa igu badan kaasina ka madaxa maanta ay dhaqaajiyay aan kolba xaafadaan tageen waxay siidaan ka waayo shalmada waan ka qaymaa ilaahay bay igu marka waxay duruufo weyn waa adag yihiin saddexda waqti ay dadku cunaan ma helaan qoyskani bedelkeeda waxaan weydiiyay waxay cunaan waxaanay soo hordhigtay cunto adiga daawada ahi aanad joogtaysan cunisteeda ma cuno kololo gaajoodan digaagiyaan roodida ay sarba caruurtu noo tagta roodida soo hadhay baaburta ku soo hadhay barteen ay marka horeba marka xoogooda igu man wax yar oo dalcada ku sameeysan jirnay ay ugu koreen waxa hadaan helahan u kariya oo hadaan aanan seeray walaaqdan iskaga dhuuqa hayo ninka gaajoonaya dooranaya waa nin hayade wala way sheegtay inuu badkeedu ay ka haray waxbarashadii lacag la'aan awgeed haddana waqtigan ay doorashadu soo dhowdahay ayaan weydiiyay inay qoys ahaan diyaar u yihiin ama ay qabaan dareenka ah inay jiraan musharaxiin u tartamaya xilka madaxweyne iyo ku xigeen ee Soomaaliland horta anu mid hanahay mid ugu ridi maayo hayo waayo maxay noo tarayaan hayo aniga ku sheego ilaahay bay igu ya nool baan iska sii bixiyo oo waan u ololayn jiray oo waan u tumi jiray aniga araggaada arkaysid tacalafkayga markuu sidaa noqday siiraayana ka nala jaara uu lugta saan u wada lugayn jiray maanta dabadiisii maad gaadhaysa ya aanu codaynay aanu ololaynay aanu samaynay aanu
شنو كما قادنا وسيران إن هذا نكشبنا العق عنا علمان قبنين هاي شنو ترى شنو هالسيرايو سيدي هنكيا لي أنا قوي سنة هاي آخر من حساب تمنا أدون كوالي قتك سنو كتك أنا وكتك سما قرنا يصير لما قاعد شيء قد شو ربي بيجو إذا أنا يقول دح بختي أنا سأقول دم تيان هو كابيس أنا ممكن دبعت هذا ما أقدر وإنا كا أنا ورث كسر علي حبوا ما هيو أو للدلية أرور والبوا للدلية مشرحين بتشري يقولون دونين كرسي فلان أو ترتمية يجمع حد يشدين سه كي هران وحكوا الناسنا كان بطبع مري أنا واحد شاء أو كسر كذا كان بشقين السوالة صنطان أسبوع هذا هاي أنا لما كانوا كسر كذا يو وحقبنا يعني ما شرتها كو خسارين أنا شونس كقاضي شعبانو بدنها أناك إلهي بنا تشعل هاي مخال كاتاد مرتان هذيك السلفي عم بينك لجوب بريدون أنا الباب كقفل يقصي مركان تدنا تطبع وتطبنا إلهي أنا كإلهي بنا وطا هنا تشعل intooda badan in malaha masquulo ama suuliye ay ku xaajo gutaan taasna waxay keentay in nadaafadda hargeysada qarsoon ay noqoto mid liidata halwadeenada caafimaadka ayaa walaac ka qaba inay cudurro ka dilaacaan ifraax muuse jaamac waa halwadeen caafimaad oo ka tirsan hay-adda bisha cas ee somalilan waxay walaacaasi ku matashaa aqoon-yahanka caafimaadka waa run xaaladda state house-ka magaalada hargeysa ku yaala oo waliba magaalada dhexdeeda ku yaala waxaan odhan karaa waa meel halis daaqaysa halis weeyaan meel halis badan ka iman karto meel khataro caafimaad yaalaan meel aad guri isugu dhowdhow yihiin maxay hayday kaabayaashii nadaafadana aan lahayn marka aan waxaan odhan karaa waa meel halisi kasoo fool leedahay halista aan sheegay waxaa fududeyn karaa horta marka ugu horeysa waxay leeyihiin suuliyadooda haday suuliye jiraana suuligu suulo hoos u qodan oo intii caafimaad ahaan loogu talagalay qodan maaha waa suuliyadada taaldara noqoteen oo 1 mitir qodan iyo waxaan dhaamin isla markaana meeshii dadku seexanayeen ku yaala ama meeshii kijada ahayd ay horta wax kala soocan baan ugu maanarag waxaan ka guriye yar oo kooban oo laga dhisay mariyo iyo baaco iyo maxay haday wax geed dhirta ka soo go'o maxay haday guriye yar laga sameeyay meeshii la jiifsanay meeshii wax lagu cunayo suuligii aan waxba isku jirin meelaha qaar 5 mitir oo family ku nool yahay ama 4 mitir oo family ku nool yahay hawlihiisa dhan kooda fushanayo waxyaabihii domestic ahaa ee looga baahnaa guriga oo dhan lagu fulinayo marka qaarkoodna aanay suuli lahayn qaarkoodna suuligu u yahay mid inta ku dhex yaala gaabana oo ay ka dhalan karto halis badan haddii aynu dib ugu noqono hargeysada qarsoon xiriiriga guryaha ka samaysan marada iyo kartoonada awgeed waxay caashii sheegtay in dhaqaale la'aanka soko aanay dab shidan cabsi ay ka qabaan guriga ku gubta awgeed gaashaanle sare axmed maxamed xasan oo loo yaqaano sawaaxili waa taliyaha guud ee ciidamada dabdamiska waxa uu walaacaasi la qabaa maatida ku dhaqan hargeysada qarsoon marka ugu horeysa xaafadaha ama guryaha ka dhisan oo dhan oo wada buulkuna waa waxyaabaha ugu nugul inuu dab qabsado midda kale haddeenu sharciyan u eegno xaggii dabdamiska waxaa jirta waxa la idhaahdo sharciga guryaha dhisidooda waxaa la idhaha building construction regulation baa la idhaha marka iyagoo buulala ayaa haddana aanay lahayn xadayn qaar tallaabo isu jiraan qaar baa isku badhijisanba marka iminkoo kale dabal xagaagan oo kale ma ku socdo hadduu hal buul gubto dee wixii hore way israacayaan marka halista ugu horeysa waxaa horta sidaa loo degaa qalada waa in xadeyn loo sameeya midda labaad haddii iminka aanu gurmada dee horta wadda aanu marnaba heli maynaba waddaa jirta waddadaasina baabuurta dabdamiskaabaa ku ciriiriyaba marka anagu duulimaad tegino baabuurta waxay leeyihin location ama meelo kale istaagaan qaar baa dagaalamaya qaar baa saysenaya qaar baa nabadgelyo ka shaqeynaya qaar baa backup waxa la ama baritaan sameynaya marka horta wixii dhan waa la waayaya marka khatarta taala waxa weeyaan buulashii oo wada guryahooda buulala oo u nugul dabkii dabeel xagaagii oo dabkii dhaqsoo fidinaysa fiditaankii dabka ayaa fara badnaanaya marka mushkilada labaad waxa weeyaan
maadaama ay tahay meel congested ama meel isu wada dul fuushan dadkii baa isu wada dhow mar allaari markuu dab dhaco waxaad arkaysaa laba kun oo qof markiiba meesha imanaya marka dhibaatada naga haysta haween wada la'aantii iyo dadkii markay kusoo buuqaan inta dadka kala eriysid aad leeda kala baxa ayuu horta waqtigu kaa dhacaya xaafadan waxaa loo yaqaanaa State House-ka waxaana ku taallaa agagaarka qaar ka mid ah guryaha ay dawladda iyo hay'adaha qaarkoodba ku shaqeeyaan daawad ay la soo aragteen Hargeysada qarsoon ee idinka warramay bal imkana ila eega inta talaabay isu jiraan daraska sheegayeen iyo mas'uuliyiinta ay aaminsan yihiin in xilka saaran yahay waxa baahi ay tabanayaanna ay tahay inay buuxiyaan مسافة كير بقول طلاب وأما بقول متر هرجيسة قرصوني إنك صور من واحد درس لا وصور كادين مقدار قدر شيء ذو يحي وزير وزارة المدحتوية ده محمد حاشا عبدي وحكور شيء ده ولين عن ميدك تيجي حاجة قريجة وجار كولي مدحوينها سومالي لان أحمد محمود زينايو وتتغير تكون نول هرجيسة قرصوني إنك صور من وستال هاوس قاهي أيوة أركان إني هين تتحيل كوهية كربان مسؤولية ده يبقى هي تبريان si aan u dheeli turno barnaamijkan waxaanu isku daynay inaan dhinacooda wax ka weydiino wasaaradaha dawladda oo qaabilsan arrimahan sida wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada oo mas'uuliyiintoodu ka cudur daarteen inay wax ka yiraahdaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool Hargeysada qarsoon iyo sidoo kale wasaaradda dibadejinta oo inkastoo wasiirkeedu Cali Siciid Raygal laba goor oo kala duwan uu nala ballamay haddana aanu oofinin ballantaasi aynu dib ugu noqono hooyo Sahra iyo mahadlaha aan loo hadal ee u baahan gargaarka walow iyada iyo qoyskeedu iyo qoysas kale oo badanaba marxaladaasi ku jiraan haddana weli rajo ayay qabaan oo farxad bay abuurtaan